السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waa Pitch Media waxaanu halkan ku soo qaadanaynaa safarkii uu madaxweynuhu ku boqolay dalkaasi Mareykanka oo aynu halkan ka arki doono soo dhaweyntii iyo qaabkii kala duwanaa ee jaaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guud ahaan markii uu ka soo degay Washington DC qaabka loo soo dhaweeyay oo aad ka arki doontaan muuqaalkan ugu horeeya oo qaybtiisii ugu horeysay inaga soo gaadhay halka waxa loogu qabtay soo dhaweyn aad u ballaaran iyadoo ay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan dalalkaasi Canada iyo Mareykanku ay halkaasi isugu yimaadeen iyo qaybo kale oo ka tirsan Jamhuuriyadda Soomaaliland jaaliyadaha ku dhaqan dalalkaasi Yurub wixii awood u lahaa inay ka qayb galaan hawshaasi ay dhamaantood halkaasi ku dhameystireen waxa kale oo halka idinka muuqda muuqaalada kala duwan ee dalka Mareykanka iyo guud ahaan security-ga dhinaca ciidamada iyo soo dhaweynta marka loogu sameeyay muuqaalkan oo aad arki doontaan qaabka iyo nidaamka loogu diyaariyay ama loogu diyaar garoobay madaxweynaha haday tahay dalka uu martida u yahay iyo haday tahay guud ahaan jaaliyadaha kala duwan ee ka soo kala amba baxay dalalka kala duwan ee ku yaala dalalkaasi galbeedka Yurub ama Mareykanka iyo Canada. halkan waxa inooga muuqda madaxweynihii oo ka soo degay madaarka Washington DC oo ay soo dhaweynayaan guud ahaan jaaliyada iyagoo ku jeerin qaaran kalena hortagay calanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland halkaas oo ciidamada kala duwan ee dalkaasi Mareykanka aad ku aragtaan iyagoo ku labisan direyshadii kala duwanaa iyo habka maamuuska iyo nidaamka loogu diyaariyay iyadoo ciidanka markaasi ay ka qayb galaya xafladaasi ay yihiin qaar u dalban oo aad indhihiina ku aragtaan soo dhaweynta iyo daramalka guud ahaan ay ugu talagaleen inay ku soo dhaweeyaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo muuqaalkiisu halkan idinka muuqdo iyadoo aad arkaysaan askarta iyo ciidamada kala duwan ee iyaguna u darban soo dhaweynta iyo jaaliyadda oo iyaguna ka sii dambeeya oo noqonaysa qaybaha kala duwan inta markaa maamuuska ugu horeysa leh iyo inta dibadda iyo gudahaba ku jirta oo aad ka arkaysaan in ay u saaran yihiin qaybihii kala duwanaa ee calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland haday tahay hablihii wiilashii gabdhihii dhalinyaradii iyo ciidamadii kala duwanaa ee amniga sugayay oo halkan dhamaantood ku dhameystiran oo u heegana soo dhaweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. muuqaalkani waa kii ugu horeeyay ee soo gaadha Pitch Media oo aad ka arkaysaan qaybtii ugu horeysay inagoo soo gudbin doona qaybaha kale ee kulanada iyo qaybaha markaasi qaabilaada uu ku sameyn doono madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland bulshada iyo qaybaheeda iyo safarka uu ku tagay guud ahaan dalkaasi Mareykanka iyo qaybaha uu kala kulmi doono ama ay diyaar ku yihiin guud ahaan safarkiisan inay ka wada hadlaan hanaanka guud ee markaasi uu ugu gudbinayo fariimaha kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka xambaartay isagoo halka ku soo bandhigi doona wixii markaasi uu la tagay guud ahaan dalka iyo dadkaba ay u noqon doonto muuqaalkani kii ugu horeeyay inagoo markaa bahada daawan doona waxyaabaha kale ee soo socda ee ka daba iman doona muuqaaladan aynu arkayno. halka waxa inooga muuqda cid kasta oo indhaheeda ku arkaysa iyo sida ay ugu diyaar garowday iyo ciidankaasi sida uu ugu dalban yahay iyo guud ahaan ilaa iyo Mareykankii oo sita calankii oo ciidamadaasi ay ku dalban yihiin in ay ku diyaar garoobaan calankii guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland. cid kastoo Soomaaliya oo maanta daafaha caalamka ku dhaqana ay u tahay wax weyn oo soo kordhay marka la eego muuqaalkan oo aad iyo aad u cajab badan oo run ahaantii aad ka arkayso qaybaha kala duwan ee dalalkaasi aynu maanta gaarnay ama dalka ugu weyn dalalka caalamka oo maanta noqday kii ugu horeeyay ee sida meeqaamka noocaas loogu soo dhaweeyo madaxweyne ku abtirsada magaca ummadda ama qoomiyadda Soomaaliyeed oo noqonaysa markii ugu horeysay ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhacdo in loogu diyaar garoobo hab noocaas oo aan weli u soo marin safaradii kala horeeyay ee ay ku tagayeen guud ahaan Soomaalida kala duwan ee ku dhaqan qaybaha kala duwan ee markaasi shanta ah laakiin ay tan noqotay tii ugu horeysay ee muuqaalkan gaarka ah yeelata. halkan waxaaynu dhammaan ugu soo gudbinaynaa bulshada caalamka iyo guud ahaan dadyoga Soomaalida in ay arkaan halka ay maanta marayso ama wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland sida loo qaabilay iyo qaabka loo soo dhaweeyay oo noqonaysa mid aan indhaha laga qarsan karin oo qof walba muuqaalkan uu ka arkayo habka iyo hanaanka loo soo dhaweeyay madaxweynaha taasoo magac iyo sharaf ah
iyo karaamo ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay ku dhaqan tahay, gaar ahaan ummadda ku dhaqan Jamhuuriyadda Somaliland oo maanta ay ugu jirto meeshii ugu sarreysay marka la eego ama hanaankii ugu wanaagsanaa ee dal caalamka kuwa ugu awood badanihi uu noqday mid maanta habka iyo meeqaamka iyo karaamada iyo weynaynta ku qaabila madaxweyne ka socda dalkan Jamhuuriyadda Somaliland ee curdinka ah ee gobonimadiisii mar labaad u curtay 1991 markii laga dhawaaqay magaaladaasi Burco. Jaaliyadaha kala duwan ee u soo boqolay ama u soo ambabaxay safarka soo dhaweynta madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Somaliland oo iyagana halkan aanu hambalyo uga dirayno, iyo guud ahaan cid kasta oo isku dayday inay markaasi ka qayb qaadato soo dhaweynta madaxweynaha, hadday tahay dadkaasi Mareykanka ah iyo ciidamadaasi kala duwan ee u darban soo dhaweynta iyo diyaargarowga ballaaran ee loo sameeyay madaxweynuhu markii uu ka soo degayay airportka Washington DC. halkan waxay nooga muuqdaa muuqaaladaasi la yaab kale oo hore aan uga dhicin geeyiga Soomaalida ama inta badan aan loogu soo dhaweyn madaxweyne ama madax inta badan ka socota wadamada geeska Afrika ama guud ahaan meelaha ay Soomaalidu degto, mid dawladda iyo mid kaleba. waa maqaamkii ugu horeeyay ee muuqanaya ee muujinaya in dalka Jamhuuriyadda Somaliland ay ku leedahay maqaam sare ama soo dhaweyn iyo dan weyn oo markaasi ka muuqata habka loogu diyaar garoobay ama danta uu ka leeyahay dalkaasi Mareykanku sooyaalka taxanaha taariikhda intii aynu soo joognay. muuqaalkan oo kale weli maynaan arag, laakiin waxaynu leenahay guud ahaan dadkii isku dibariday iyo ururkii ka qayb qaatay ama organizationkii isku dayay inay hawshaasi u fusho Jamhuuriyadda Somaliland gacan ka siiyay sidii ay galaangal buuxda ula sameyn lahayd dalka Mareykanka oo noqonaya kii ugu horeeyay ee heerkaasi markii wafdigii halkan nagu soo booqday ay ka ambabaxeen dalka. fariintii ay sideen ay ka muuqato soo dhaweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo noqday habka iyo nidaamka loogu diyaar garoobay mid aad iyo aad u sareeya. haddaan nahay bahda Pitch Media waxaan diyaar garoobaynaa qaybaha kala duwan ee soo socda ee nooga soo gaari doona hanaanka ay markaasi u qaabileen iyo habka markaasi madaxweynaha ay bulshadu la kulantay iyo guud ahaan ummadaha kala duwan ee ku soo dhaweeyay airportka iyo gaadiidka markaasi lagu qaaday ee loogu geynayay goobtii loogu talagalay madaxweynuhu inuu dego ama loogu talagalay in loo qoondeeyo ee qormada looga diyaariyay uu ka degayo inta uu safarka ku joogo dalkaasi Mareykanka. haddaba waxaynu u sheegaynaa cid kasta oo ka soo jeeda Jamhuuriyadda Somaliland ama guud ahaan jaaliyadaha kala duwan ee ku abtirsada magaca iyo maqaamka guud ee ay leedahay qoomiyadda Soomaalidu in wax kasta oo u soo kordhaya magaca guud ee Soomaaliyeed ama ummadda qoomiyadda guud ee Soomaalida ah in ay noqdaan mid ay ku farxaan ama ay ku soo dhaweeyaan habkaasi ay ugu diyaar garoobeen jaaliyadaha iyo guud ahaan dalka aynu martida u nahay ee maanta madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminaya ay ka degeen dalkaasi Mareykanka. waa markii ugu horeysay ee mar labaad aynu ku soo celino muuqaal noocan oo kale ah oo aynaan weli hore ula kulmin inaga oo eegayna habkaasi baaxadda leh ee loogu diyaar garoobay, hadday tahay dadkii hawshaasi gacanta ku hayay iyo hadday tahay dawladda martida loo yahay labadaba. run ahaantii qaybaha kale ee soo socdana waxaa kala xiriiri doontaan Pitch Media oo inta badan focuska ku haya ama taageerkiisu yahay sidii uu soo gudbin lahaa qaybaha kala duwan ee soo socda ama waxa uu markaasi madaxweynuhu kulamada uu la yeelan doono qaybaha gaargaarka ah iyo ujeedadii ugu tagay dalkaasi Mareykanka iyo fariinta uu gudbinayo ee uu gaarsiinayo guud ahaan caalamka kale ee markaasi iyaguna uu doonayo inay markaasi hawsha Jamhuuriyadda Somaliland waqtigan aynu ku jirno ay gaarsiiyaan oo ay noqdaan qaar ka garnaqsada oo soo bandhiga dimuqraadiyadda guud iyo waxyaabaha kala duwan ee dalkan iyo dadkani ay horumarka ku sameeyeen, taasoo keentay isku tiirsanaanta iyo isku duubnida dadka Jamhuuriyadda Somaliland ka soo jeeda markii ay isu tageen ee ay isu diyaariyeen inay dalkooda iyo dadkoodaba ay dhisaan inay noqotay mid ka muuqata ama ka turjumaysa muuqaalkan inoo hor yaalla oo muujinaya run ahaantii isku tiirsanaanta iyo midnimada bulshada kala duwan ee markaasi u diyaar garowday in ay madaxweynahooda iyo wafdiga uu hogaaminayo ay uga soo ambabaxaan shaqooyinkii iyo hawlihii ay ku hawlanaayeen ama ay ku xadfanaayeen ee ay ka hayeen dalalkaasi caalamka, iyagoo mid waliba firaaqadiisa iyo jaaniskiisa inta uu heli karayo ku beegay maalinta imaatinka iyo soo dhaweynta
xafladda madaxweynaha jamhuuriyadda Somalilan ee maanta ka soo degay dalkaasi Mareykanka oo ay ka muuqdaan guud ahaan farxad iyo rayrayn iyo soo dhaweyn aad u ballaaran oo dadka iyo guud ahaan dalkaasi inta ku dhaqan iyo inta daafaha caalamka ka timidba ay noqdeen qaar ugu soo diyaar garooba inay maanta ku muujiyaan midnimadooda iyo qarannimadooda iyo karaamada iyo sharafta dadka iyo dalkani ay xambaarsan yihiin. waxaynu arki doonaa gilbinta iyo sagootinta uu kaga ambabaxay goobta airportka madaxweynuhu iyadoo loo diyaariyey gawaadhida markaasi dowladda Mareykanku ay ugu tala gashay wafdigan oo ay ugu xardheen ama ay ka luleen calanka jamhuuriyadda Somalilan ee uu ku xardhan yahay tawxiidka ugu sareeya dalalka islaamka ee aynu noqonayno guud ahaan in aynu markaasi ku muujino maadaama aynu nahay dal islaama oo noqonaya in dalalka ugu weyn marka aad muujiso awooddaada ama aad muujiso rabitaankaaga ama aad soo bandhigto had iyo jeer kalsoonida aad ku qabto waxyaabaha inta badan haykalka iyo hanaanka diimaha iyo ashcaarta ay ka muuqato calankeena oo noqonaya kii ugu sareeyay markaad eegto oo aan maanta hoosna loo dhigin ee ah ka ugu sareeya ee ka muuqda xafladan iyo soo dhaweyntan iyo farxadan ay u darban yihiin guud ahaan dadkaasi maanta ugu diyaar garoobay madaxweynaha inay ku soo dhaweeyaan dalka iyo dadka Mareykanka ee maanta uu martida u yahay. waxaa halkan nooga muuqda ciidamo kala duwan oo ku labisan direysyo kala duwan oo noqonaya kuwa markaasi magaalada iyo kuwa markaasi amniga ilaalinaya iyo kuwa u taagan soo dhaweynta iyo siinta guud ahaan sharafta iyo karaamada ay ku soo dhaweynayaan maamuuska calanka iyo qaranka madaxweynihiisa hogaaminayo iyo wafdiga la socdaba in ay markaasi sidii ugu sareysay halkaasi muuqaalkoodu ka turjumayo mid aan loo kala hadhin oo muujinaya in guud ahaan si weyn loogu soo agaasimay habkan iyo hanaankan uu madaxweynuhu kala kulmay airportka iyo guud ahaan soo dhaweyntan la yaab kale ee markaasi ka muuqata horteena. waxaynu dhammaan ku hambalyeynaa cid kasta oo hawshaasi ka qayb qaadatay oo aynu leenahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin soo dhaweynta madaxweynihiina iyo habka ay soo agaasinteen iyo quruxda iyo sharafta iyo karaamada aad muujiseen ee noqonaysa isku tiirsanaantii ugu sareysay ee dadyaga ku dhaqan jamhuuriyadda Somalilan ay tan oo kale ugu diyaar garoobaan. waa markii ugu horeysay ee ay noqoto in dadyaga markaasi ku dhaqan ama shacbiga kala duwan ee jamhuuriyadda Somalilan si hagar la'aan ay ugu soo baxaan oo ay ugu soo banbaxaan inay madaxweynahooga iyo magaca guud ee qaranka jamhuuriyadda Somalilan iyo sharafta iyo haybadda iyo haykalka uu xambaarsan yahay dalkoodu ay u mijiyaan shucuubta caalamka iyagoo markaasi u kala qaybsanayn ee noqday mid markaasi muujinaysa guud ahaan in ay isku tiirsan yihiin. halkaa waxay nooga muuqdaa madaxweynihii oo soo degay oo markaasi si guud u bixinaya salaan iyada oo loo taagan yahay safsaf oo markaasi wafdigii la socdayna ay hareero socdaan. halkaa waxaa ka muuqda kamaradaha iyo guud ahaan duubista kala duwan ee markaasi lala hareero taagan yahay socodka madaxweynaha iyadoo lagu hagayo halka uu markaasi ku socdo ee uu kaga ambabaxayo marka la eego halka uu ka soo degay ee loogu diyaar garooday oo ay u dhammaystirayeen. dhulkana waxaynu soo gaadhnay gaadiidkii iyo hawlgalkii loogu talagalay in lagu hooyo ama lagu geeyo meeshii markaa loogu talagalay in madaxweynuhu ay noqoto fadhiisankiisa. qaybtan ballaaran ee aan idinku soo qaadanay ee ugu horeysa ee Pichi Media ay tahay inay idinku soo gudbiso run ahaantiina ay idinka dhadhiso ama ay idinku iftiimiso safarka ballaaran iyo waxyaabihii markaasi ka muuqanayay oo aan loo kala hadhin oo ka muuqanaya halkan qaabka iyo nidaamka uu madaxweynuhu u soo degay iyo sida markaasi loogu diyaar garoobay ee loogu taagay. waa Pichi Media oo kale haddii aad fadlan ugu cusubtahay subscribe-ka ha iloobin la soco qaybaha soo socda. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala